iyadoo shir ay isugu yimaadeen dhowaantan isla markaana ka dhacay magaalada London ee caasimadda dalkaasi Ingiriiska maamul goboleedyada Galmudug State iyo sidoo kale Galhiiraan isla markaana ay ku midoobeen ayaa waxaa ka warbixiyay labada madaxweyne xilli ay ka soo degeen garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Warren waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha Galhiiraan isla markaana sheegay inay ku midoobeen magaca maamul goboleedka Galmudug State isla markaana ugu baaqay maamul goboleedyada ama maamul goboleedka madaxweyne TI inuu ku soo biiro xilli uu sheegay in kulan ballaaran ay ku qabanayaan magaalada Nairobi. anoo ah madaxweynaha Galhiiraan Hareer State iyo madaxweynaha Galmudug Caalin waxaan u nimid halkan shir waxaa jiray ka horeeyay kan oo heshiis ah oo ka dhacay magaalada London shirkaas oo aanu maartay ku mideynay maamulada oo aan ka tashan aayaheena aniga iyo Caalin iyo Maxamed Daahir oo asagana Central State of Somalia oo haddana uga soo tagnay London waan jecelnahay asaga iyo maamulada kaleba inay nagala soo qayb galaan sida TI oo kale asagana walaalkeen waxaan jecelnahay inuu noo yimaado shir ayaan ku qaban doonaa Nairobi haddii Ilaah yiraahdo shirkaas oo aan haddana dadweynihii taageersanaa saddexda maamul ama afarta maamul baan dhaho inay ka soo wada qayb galaan oo danaheena aan ka tashano kadibna aan isku afgaran gudihii shirweyne laga qabto. sidoo kale waxaa isna dhankiisa xaqiijiyay isla markaana la hadlay saxaafadda madaxweyne Caalin oo sheegay in magaca maamulkiisa ay ku midoobeen isla markaana waxa uu sheegay in hadda maamulkiisu aqoonsi wanaagsan ka haysta beesha caalamka. waa midowna anaga waxa aan ku midownayna waxa weeye Galmudug waayo hadda iyada ayaa maaragtay jirta aqoonsigii heshay dayama garowtu iyo marka inta kalena waxaan rajaynaynaa inay soo wada raacaan maadaama aan isku wada dannahay hal gobol wada nahay haddaba baaqa loo jeediyay maamul goboleedyada kale ayaan la ogeyn sida ay ku suurageli karto isla markaana sida ay uga soo qayb gali karaan kulanka ballaaran ay iclaamiyeen labada madaxweyne isla markaana ka dhici doona magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya. imaanshaha madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug State ayaa waxaa ku weheliyay madaxweynaha Galhiiraan isagoona ka yimid magaalada London ee caasimadda dalkaasi Ingiriiska halkaas oo uga soo qayb galay shirkii 23 February ee bishii la soo dhaafay ka dhacay magaalada caasimadda ee London kaas oo loo qabtay Soomaalida guud ahaan. Cabdirasaaq Miro Dhoore, Hon Cable TV, Nairobi.